heshiiskan oo ka kooban ilaa 13 qodob ayaa laga soo saaray shirar maalmihii ugu dambeeyay ka soconayay degmo xebeedka Hobyo kuwaas oo ku qotomay in dib heshiisiin rasmi ah loo sameeyo dadka wadadega degmada Hobyo waxaana shirkani soo qaban qaabiyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda hoose ee maamulka Galmudug iyo hay'adda maxalliga ah ee CBD dadkii ka qayb galay gabagabadii kulankaasi ayaa soo dhaweeyay qodobada ka soo baxay kulamadii maalmihii ugu dambeeyay ka soconayay degmada Hobyo ee ku saabsanaa dib heshiisiinta khilaafyada ka yimaado cilbiyooda waxa dhahan marka waxa lagu dhameyn karaa ama khilaafyada si lagu xalin karaa deegaan maamulka markaas ka jiro deegaanka waa deegaan bulsho meel wada degan waxay leedahay maamul ay leedahay haddii maamulka uu iska kaana qabto bani aadam way was qabanayaan ra'yi saan waaye iyo saan waaye laga yaabaa isku qabteen aan dhex galno saddexeeyo noqono aan niraahdo wariyada sida tan bay ku qurxantaa Soomaaliya haddii ay noqoto inaan maaragtay xaafad lagu qaybin karin in lagu qaybiyo qoys taasoo maaragtay qoyska oo faa'iido ay leedahay qofka uu sheegay ama dadka ay sheegay ka dhawaajeen in la heli karo ama loo tagi karo qofka saxda ah ee u baahan maaragtay baahidaas gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Axmed Cali Cabdullaahi Fahad ayaa asna ka hadlay gabagabadii kulankaasi waxaana uu tilmaamay in ay muhiim tahay in maamulka iyo shacabkuba ay wada shaqeeyaan ayna ka wada shaqeeyaan horumarka iyo nabadgelyada degmada Hobyo hortiisa maamul waxa lagu khasaarama hadda inta maamulka ay ka daciifka aysan oo aan askarta badan lahayn oo aan dadka xirxiri karin oo aan wax karbaash karin ee aan ogtiisa aan ku wadno faa'iidada lagu qabo ogtiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Galmudug Mahad Maxamuud Sahal ayaa gabagabadii kulankaas ka hadlay sida ogtihiinba waa Hobyo waa meel istiraatiiji ah Afrika oo dhan halka u xigta East u xigta oo la doonayo in maaragtay ay ka muuqato meesha ku taalo aysan noqon magaalo duntay kala shirku waa noo gabagabo guul fiican baan laga gaarayo hay'adda iyo maamulka waa noo si fiican bay u qeexi doonaan meesha la yiraahdo ii sheegay tuulooyinkaas ku wada teedsan degmada Hobyo xillibi iyo wasil iyo algoole iyo meesha la yiraahdo budbud iyo waxa jooga in halkan soo shaqo tagan balro Cabdi Xasan Awowe warbaahinta qaranka Soomaaliyeed cadaado